السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارد شرفت الملك الدنيا كجوكتان كسر هذا يوتيوب جنال كسرت قروح ذا اسكسو نقد وناكسن وولاشين زينب إن دمانتين هذا قوم هسنتي سيد وناكسن هذا وحرنتين جنال كيجا هذه أتكو عصبتها جنال فضل سبسكرايب كنوصر لما أخيارتي عصب نحيد لي ويلكم سود هذا إن أنت كده إن شاء الله ما تحكى هالدونا إن أنت بدك قبلها وش يسوي ديان أبايو حكى هذا الشيء كريمة أو سايد إفكت إنه كينين ama gabdhaha uurka leh oo kale mise gabdhaha nuujinaya oo kaleeto isticmaali karaan isla mar ahaantaasna haarana dhibe haarana wareeriyay waxaa jirta fiidiyoyaal aan soo dhiga maalmo dhexe muddo ka hor dhowr bil ka hor oo ka hadlaya haaro laba boomaato oo haaraha loogu talagalay marka labadaas boomaato waxaan sheegay gabdhaha haddii uur leedahay oo kale mise ay nuujinayso oo kale inaysan isticmaali karin ama xataa ay rabto inay uur yeelato inaysan isticmaali karin sidaa daraadeed waxay gabdhaha badan ay ga soo codsadaan abaayo kareemo kaloo noo bedeli kara ama booskooda aan ku bedelan karno oonan hadhowna anaga uur leh haddaan uur lahayn kulli aan isticmaali karno insha allah halkan maanta waxaan kaga hadli doonaa ama idinkugu soo bandhigi doonaa saddexaas kareen oo haddii uur aan leedahay haddaad uur lahayn dhammaan mar walba aad isticmaali karti wax dhibaatana kuu keenin waxyaaba ay ka samaysan yihiin waxyaabo ama ingredients oo natural ah ama maadooyin oo natural ah oo harm ku ahayn skinka oo wax dhibaatana insha Allah ku keeni doon biidhnillaahi kariim soo hadaba ila daawo fiidiyooga dhammaystiran idinkoo mahadsan midka u horeeyo ama kareenka u horeeyo waxa waaye company waxa la dhahaa insha Allah sawirkiisa halkan aan ku soo attach garan doonaa si aad uga faa'iideysataan CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum ayaa la dhahaa waa serum vitamin C ka samaysan iyo ingredients kale oo aad iyagana muhiim u ah marka serumkanetid waxay ka caawisaa maqaarka inay midabka furto inay qaleelka badan ka baabi'iso haaraha iyo waxaas oo dhan aad iyo aad bay ugu fiican tahay hadda soo dhacno waxyaabaha uu ka samaysan yahay maadooyinka uu ka samaysan yahay serumkan number 1 waxa kamid ah inay ku jirto vitamin C na waxaan ognahay inay u fiican tahay maqaarka inay midabka furto inay qaleelka badan ka baabi'iso iyo dhammaan waxyaabahaas oo dhan inta laga gudbo waxa kale oo ku jirta maado kale oo iyadana loo yaqaan hyaluronic acid oo iyadana maqaarka siisa qoysa qaleelka faraha badan ka baabi'isa oo gunta ka soo qoysa waxa kale oo ku jira serumkan vitamin B5 ayaa ku jirta oo isagana maqaarka maxaa la yiri smooth ka dhigaya marka serumkan inaba caadi maaha dad badan oo amaanayo oo isticmaalay oo ka soo falceliyeen waan arkay soo haddii aad daneynaysid fadlan ka faa'iideyso haaraha haddii haara aad qabtid ama madmadow maqaarkaaga ku jiro iyo waxyaabahaas oo dhan aad ay kaaga anfacaysa inta marka laga soo gudbo kareenkan waxa isticmaali kartaa habeen iyo maalin labadaba waa isticmaali kartaa waxba dhib ma laha maalintiina waa iska isticmaali kartaa habeenkiina waa iska isticmaali kartaa haddii aan usoo gudubno kareenka labaad sawirkiisana halkan soo dhigi doonaa waxa asagana la dhahaa Eucerin Anti-Pigment ayaa la dhahaa kareenkan asagana wuxuu leeyahay day-na uu leeyahay night-na uu leeyahay labadana waa soo wada gadan kartaa oo kan night ka isticmaali kartaa kan dheega isticmaali kartaa runtii kareenkan asagana aad ayaa dadka uga falceliyeen oo na soo amaaneen markay noqoto dhanka haarahana loogu talagalay anti-pigment ayaa la dhahaa waxa ugu weyn ee qabatana waxa waaye inay hoos u dhigto melanin production melanin waxa la dhahaa hadda koran fiidiyoyaal hore waa ka soo sameeyay waa maadada qofka bini'aadamka maqaarkiisa siisa kalarka siisa waay marka taas ay kugu badato marka melaninta ay aad u kordho waxay samaysaa inay ka soo ifbaxdo maqaarkaaga kor iyadoo isla mar ahaantaas ku reebaysa meelaha qaar inay madmadow ku reebto oo meelaha qaar sida haaraha oo kale qofku inuu yeesho wajigiisa ama jirkiisa meelaha qaar meel ay madowda meel ay caddahay saas oo kale marka waxa ugu weyn ay qabato wax way kareenkan inay melaninta hoos u dhigto marka maadaama hoos u dhigaysa si uu maqaarkaaga skinkiisa isugu ekaado meelihii madmadowga iyo waxaas dhan iyo haarihi waxa dhan way ka baabi'isaa maqaarka waxay sheegeen waliba inuu mataqaana kareenkan 4 isbuuc gudaheeda result lagu helayo macnaha oo isla markiiba qofka uu dareemayo maqaarkiisa soo ifay haarihii oo ka soo baabay qurux iyo dhalaal intaba uu noqday marka asagana day and night bulee kan daygana waliba waxa ku jirto ama uu wata SPF macnaha sun protection ku jirto oo qoraxda wax ka ilaalinaya ku jirto kan dayga soo kaligiis isticmaal kartaa xataa ma u baahnid hadhow inaad kareenka qoraxda isticmaasho kan habeenkii waa isticmaalaysaa
kareenka saddexaad ama kan ugu dambeeyana isagana magaciisa waxaa la dhahaa Dimalan cream ayaa la dhahaa. waa boomaato camal waaye, ayadana waxay ka kooban tahay 3 maado oo 3 macnaha ingredient ayaa ku jirto oo intaba ah macnaha ingredientyo ama maadooyin wax dhibaato maqaarkaaga aan u keeninin oo natural ah. kareenkan wuxuu iskugu jiraa 3 maado glycolic acid oo 10% ah, arbutin oo 5% ah iyo 2% oo kojic acid ah. ingredientyadana dhamaantooda waxaa laga keenay ama laga soo sameeyay dhirta oo waa herbal, maaha wax dhib ku keenaya maqaarkaaga. hadaa uur lahayn waa isticmaali kartaa. saddexda ingredient aan soo sheegay, midka glycolic waxaa laga soo sameeyay sugar cane-ka waa qasabta, arbutin sidoo kale waxaa laga soo sameeyay miraha loo yaqaano beerberry, sidoo kalena kojic acid waxaa laga soo sameeyaa waa fungi oo waxaa laga soo sameeyaa bariiska la bacrimiyo fermented rice. maalmahaas boomaato hayar kunoon ayaan ka soo hadlay oo xalij videogayga inta soo dhigi doona. gabdhahana badanaa videogaas aad ay su'aalo iga soo weydiiyaan. marka hadda uurnada walaasheeda kaas iska dhaaf kana isticmaali kartaa because waa hayar kunoon oo dabiici ah oo dhirta ay ka imaado waay. laakiin waxaa loo baahan yahay kareenkan inta marka isticmaalisid qoraxda ina iska ilaalisid. aamin inaad maalintii oo kale marka qoraxda u bixisid aad isticmaashid kareenka qoraxda. maxaa yeelay bomaatadan waxay sameyn doontaa maqaarka kore oo dhintay oo ama haaraha kule ay ka qaadi doontaa. waxa arki doontaa maqaarka ku qaadmaayo camal. marka maadaama maqaarka uu qalqalalayo qaadmaayo waxaa lagaaga baahan yahay inaad moisturizing isticmaashid oo kareemada moisturizingka ama saliidaha isku guronaatid oo xataa haddii aad awoodid marka asaga marsatid kadib kareen moisturizing ka dul marsatid. haddii aad banaanka u bixaysid kareenka qoraxda waa laazim inaad isticmaashid. waa inta aad kareenka isticmaalayso waa inaad kareenka qoraxda asagana laazim isticmaashaa si uu mataqaanaa maqaarkaaga xaaladiisa ay ugu sii darnaan. sida ognahay haaraha waxyaabaha saa'iidiya ama kordhiya ama keena waxaa kamid ah qoraxda. marka qoraxda in la iska ilaaliyo waa lama maarmaan marnaba. soo kareenka haddii uu ku jirto kareemka qoraxda isku jiraan iyo maadooyin kaleeto oo haaraha ka baabi'ina waa good, waad marsan kartaa oo maalinta loogu talagalay. laakiin haddii aysan ku jirin kareen qorax ah waa inaad kareenka qoraxda gaar usoo gadataa oo markaas isla mar ahaantaasna aad gaar u isticmaashaa. maalintii oo kale kareenkaaga qoraxda inaad isticmaashid qoraxda markay jirto, hadday jirin xitaa waa la isticmaalaa. even haddii qorax jirin eeba maalin tahay oo banaanka u bixisidba isbar inaad kareenka qoraxda isticmaashid. maxaa yeelay waa lagama maarmaan. faa'iidadeeda marka waxa waaye maqaarka u horeeya inay ka qaado oo dhintay, ma fahantay. tan labaadna waxa waaye inay collagen production-ka maadada collagen-ka la dhaho ay kor u qaado soo qaado oo si ay maqaarkaaga u noqdo tight u noqdo oo maqaar يعني فيسكاga u taagmo ama u feereysma camal young beautiful aad u noqotid oo kale ay ka caawinaysa. laakiin sida ay soo sheegay laga maarmaan waxa ah maadaama uu maqaarka kor ka qaadayo oo maqaarkaaga oo dhacdacayo soo fiiqmayna aad arki doontid. waxa laga rabaa waxa waa in aad qoraxda iska ilaalisid insha Allah biidnillaahi kariim oo markaad qoraxda u bixisid kareenka qoraxda ay isticmaashid. dhamaantiin aad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee channelkayga mar walba ugu xirantihiin. dhammaan gabdhaha iyo wiilasha ugu cusub channelkayga waxaan leeyahay soo dhawaada. waan arkay maasha Allah dad badan ayaa bariyahan dambe igu soo biiray oo channelkayga ku soo kordhay. waxaana sidoo kale idinka cudur daaranayaa maalmahan mashquulka aad ka mashquulay dee mashquul adduunyo maba dhamaata ma ogtahay meel un bay kaaga imanaysaa. marka alxamdulillah haddii bal caafimaad qabo la nool yahay waa laga soo muuqan doonaa janaalka. dhammaantiin aad u mahadsantihiin sida wanaagsan mar walba ay la soo xiriirtaan kommentiyadiina quruxda qiimaha iyo qaayaha badan iyo dhammaan ammaantiina iyo ducadiina mid la soo koobi karo ma runtii waana waxyaabaha mar walba igu soo celiyay inaan janaalkayga ka soo muuqdan u jeclahay dhiirigelintana aan oga helo. dhammaantiin aad u mahadsantihiin. fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe-ka saar. dhammaan akhyaarta igu cusub wiilashii gabdhaha igu cusub bariyahan dambe igu soo kordhay waa arkay aad ayaan idinkaga mahadcelinaya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. waxaan idin leeyahay meel kasta aad dunida ka joogtaan waxaan idinkaga tagayaa khayr iyo baraka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.